Asalaamu calaykum. Filfil mirahan dab yar shidi mayaan. Filfisha waa daawo qadiimi oo dabiici ah. Waa miro ay waayeelku ka sheekeeyaan munaafacaadkeeda. Filfisha waxaa loogu yeeraa daawada lacag la'aanta ah. Taariikhda ay leedahay way dheer tahay. Haddaan se damacno inaan ka sheekayno, waqti dheer bay qaadanaysaa. Waxaan soo koobayaa maadooyinka ku jira filfisha oo daawooyinka laga sameeyo maantay lagu gadayo dukaamada daawooyinka ama aad ugu yeerto farmashiye ayagoo kartoon ama bac lagu soo xiray. Waxaa filfisha ku jirta maadada anti-catarrhal oo lagu daaweeyo qufaca iyo quman xanuunka. Sidoo kale waxaa ku jira filfisha daawada anthelmintic oo lagu daaweeyo gooryaanka xiidmaha. Waxaa filfisha ku jirta daawada antiseptic oo lagu daaweeyo infekshanada iyo raabuqa. Waxaa daawadan la wadaaga filfisha toonta. Waxaa kaloo ku jirta filfisha daawada laxative oo loo isticmaalo jilcinta saxarada. Waxaa alaaba la siiyaa daawadan dadka qaba baabasiirka. Waxaa kaloo ku jirta filfisha maadada stimulant oo kicisa murqaha iyo neerfayaasha. Waxaa ku jirta filfisha daawada anti-arthritic oo lagu daaweeyo xanuunka arthritis, gout, rheumatoid ama tufta. Sidoo kale walxaha ku jira filfisha waxaa ka mid ah antioxidant oo liddi ku ah kansarka, antibacterial oo liddi ku ah bakteeriyada, antifungal oo liddi ku ah ambaarta iyo raabuqa uu sababo fangayga. Waxaa kaloo ku jira filfisha maadada aphrodisiac oo kicisa kacsiga iyo wadida galmada muddo badan. Sidoo kale anti-inflammatory oo la dagaalanta raabuqa iyo isgoyska xanuunka ayaa ku jirta filfisha. Ma ku soo koobi karo halkan daawooyinka iyo maadooyinka ku jira filfisha. Waxaanse ku soo koobayaa in filfisha ay ku jirto iron, potassium, zinc, magnesium, manganese, calcium, vitamin A iyo C. Fadlan sii gudbi. Aad ayaad u mahadsan tahay.